بوليس مالته قرروا كل شقة يعني كجورينا كسر كنا كجورينا لوك وأنا الله كعاسي كرام معنا هذا إيه الدولة جرتوا أن كرمنا منطقة إن نساعده إلما وحبرشنا لوسين أنا وحبرشنا أن كده أردن هذه قحية بركعنا سجل سوجين قدي حتى مالا كوفق صني مالا كورنا أنا الله ينكور labaatanka bisha iska daayay xataa hadii la yiraahdo 6 bilood iyo 7 bilood dadka ay ku guuraan ma u suuraabi karayso taliya biliiska intuu fariisto command biliisiyo oo hadba warqad soo tuuro oo u dhaha yaan ugu imaan dadka oo markay dad soo diray lagu laayo waxaas waa laga fiican yahay waa fanax baa dilay waxa soo dirsatay haram cad waxa soo diray ninka la yiraahdo kaniif qorobtiisa waxa soo diray sulb niman la yaqaan baa soo diray oo ilaa hadda jeebka ku wata asagiiba maanta la yaalidana marqaatiyaab loo keenaba habeenkii xalay war saxaafadeed ka soo baxay booliiska Soomaaliya waxa lagu sheegay in halkan oo ah dhulka dabdamiska ee booliiska Soomaaliya dadka degan ay uga guuraan inta ka soo kaysa 20ka bishan Abriil lagu jiro 2024 dadka xaafadda waxay sheegeen inaysan arintaasi marnaba suurtagal ahayn isla markaana aysan ku guuri karin muddada 6 maalin ah ay u qabteen booliiska Soomaaliya qaar ka mid ah dadka deegaanka oo halkan inagu la hadlay ayaa si aad u dhalilay arintaas isla markaana dawladda Soomaaliya waxay sheegeen inaysan marnaba suurtagal ahayn talaabooyinka ay sheegayaan in la qaato mid la qaadan karo sidoo kale waxay sheegeen in arintan ay ka dhalan karto cawaaqib xumo baahsan hadii lagu sii adkaysto amar dawladeed cidiidaysa ma jirto laakiin dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed wax ku lahan ka midna waxaanu diyaarnahay hadii aan nahay dadka degan halkan inaan dhulka hoos ka saar ku jirno inaan kor ka saarano labada mid ka mid ah ayaanu diyaarna meel aanu jeednana male dalka Soomaaliya markuu nabadgelyo noqdo dadkana qof waliba tuulo ay geed iyo meel walba ka yimideen booliis maalto garuu ku shaqeeya ayaan ka guureyna kasoo kana ka guureyna lug waana la ku caasi karaa maahan hada waadi weydii leedahay ku tahay meel uma jeedno waxaan u jeedaa anagu shacab Soomaaliyeed ah dawladda إذا نوتلسا مركا ورقة قلة صار دقيقة منكم بجورينا مالنا وبجدنا ماله وجورنا ما هينو هنتدي عندي أنا طالع ذلك الصوماليات دقيقة دولة ده مسؤول نجاح ماشي نقول تلسا وناجنا واقعنا هنا أمر صوب حي أمر كذا قادو إنسان محاك صوب حك رسالة أمر كصوب حي واقعنا هنا لكن دولة ده أيها نوتلسا شرعي الدولة أوديكو ذلك مركي مال لقرر وين مالكو هبون للدجية ومد Soomaaliyeed nahay dalkana la kamale muwaadiliin aan nahay hadii aan muwaadiliin ahayn dawladdeena waxa ka codsanayna inay dalka naga basaafuriso meeshaan waxaan deganaa iyadoo hawdaan soo degnay 13 sano deganay waa ka 13 sano maxaan la siiyay anaga dhuxul aan jibinayna marna aad baxday qarar rafaan iska ahayn haye awalna qaxootiga rafaadan ka soo daalnay hadda iyadoo dawladda jirto oo aan ka rabno mataqaana inay nasaacido ilmaha waxbarashada loo siin anaga waxbarashada aan ka daba ordayna hadii qaxyo barakacna sijil soojiin qadii xataa meelan ku fuqsanay meelan ku rarna aan lahayn ka war adeer aad u maasan tahay anigu ma aaminsani in horta booliiska Soomaaliyeed inuu arintan uu ka mid yahay sababtu waxay tahay booliiska Soomaaliyeed wuxuu mas'uul ka yahay dadka xaafadan degan inuu ka shaqeeyo naxdintooda iyo hurdo la'aantooda iyo walwalkooda iyo walbahaarkoodana sax ma ahan marka waxaan filaa dad maxaa la yiraahdaa dadkaan rabo barakicintooda inay bariiskooda oo ka galay ayaa ka shaqeynayo dadkaan maxaa la yiraahdaa caqabadaha iyo qalqalgelintooda laakiin qaranka waxaan aaminsanahay madaxweynaha uu sareeyo ra'iisul wasaaraha ku xigo gudoomiyaha baarlamaanka joogo wasiiro xildhibaano dadkaan matala jiro waxaan aaminsanahay dadkaan oo dani ka soo gasho dadkaan matalana waa ay joogan madaxdii ka sareysay oo maxaa la yiraahdaa siyaasaddu ku matalaysan waa ay joogtaa wada hadalaana ka dhici lahaa ka bacdina qaab ay dadkan ku guuraan iyo farsamo imaalaheed laakiin warqadan wiiftada oo la soo gamaayo waxaan u aragnaa qalqalgelin ee wax saxa oo dadkaan laga rabo inay taama aaminsanin 20ka bisha iska daayay xataa hadii la yiraahdo 6 bilood iyo 7 bilood dadka ay ku guuraan ma u suuraabi karayso sababtu waxay tahay qaarkood waa ganacsi qaarkood maxaa la yiraahdaa waa dad buush ku jiro maxaa la yiraahdaa guriyo qaarkood guriyo ijaaray degayeen qaarkood maxaa la yiraahdaa guri oo waxay ay shalay dhiseen oo kiradiisa wali antidii ay geliyeen jeengadi iyo shamiitadii iyo qarashka ay shalay geliyeen qandalkii wali ku leh waxaan ka cabanaynaa 6 bilood in dhibaatan iyo dil iyo baraka aan naxariis lahayn la ku hayo waxaan codsanaynaa dawladda ka codsanaynaa in dhibaatada la ka daayo dadku dhul dawlo way degan yihiin
meeshaan hantideenaan ku dhisannay meel kale u guurno iyo meel loo baraaraysanna ma jirto war moobeel lagu soo tuurayna meeshaan ugu guurimayna anagu war moobeel lagu soo tuuray ugama guurayno halkan waa degannahay waana lagu soo weeraray dad baa lagu dilay dad baa lagu agoontimeeyey hadda waxaa loo damdam leeyahay dad kale in lagu dilo waa wax kaloo meeshaan ka shaqaynaya ma jiraan 6 beri baa tiri 20 sano uga guurimayno waa cadaynaynaa arrintaas anoo bulshada ka u hadlay 6 beri aa tiri 20 sano xataa ugama guuri karo meel aan u guurino sababtu waxay tahay iska daa guurid inaan guriga kireysanne gaari xataa waxaan ku kireysanno ma haysano dadkan ma haystaan waa dad marasa waa waqti nagu filan horta dawladdu yay dawlad u tahay shacabkay u tahay dawladdu inta dadka u timaado ha wareysato ha aragto oryaamiinta ha aragto kuwa xanuunsan ha aragto kuwa dagaalada ku soo dhaawacmay ha aragto kuwa daral u jiran baraleyska ha aragto horta waxa meesha ka jira ha aragto ha timaado inuu taliyaha biliiska intuu fadhiisto komaanda biliisiyo oo hadba warqad soo tuuro oo uu dhaha yaana ugu imaan dadka oo markay dad soo diray lagu laayo waxaas waa laga fiican yahay wax laga fiican yahay waa ya waxaan baaqa hodirhayaa dadkan waa laga maarmaa meelo kale la dhisi karaa dadkan in la dhaafo haddii la dayn waayo markay ugu yaraato 2 sano in la siiyo oo qofba uu ku raadsado meel uu aado laakiinse bannaanka u baxa iyadoo waqti roobka lagu jiro oo kuleelkan lagu jiro oo xilli roobka lagu jiro aniga suurtagal ilama aha wax suurtagal oo ila tahay mal waxaan taliyaha biliiska ugu baaqaya warkan inuu ka fiirsado daduu soo dirayaa dhimashaa meeshaan yees ka dhicin kale hadeer baa dhimasho yaasay dad u saaranta horta dawladdu yay matashaa sida waxa ay matashaa dawladda iska rabaa dawladdu shacabkay matashaa Soomaa annagu shacabkeedii baan nahay hadda ka hor dadkii marasta ay laayeen ilmo agoon halka ku agoontooyeen nin bay dileen oo nin madax oo waliba dawladda ay soo dirsatay uu dilay ilaa hadda wax laga qabto lama arko ilmi waxta dhul bay ku hadlayaan horta nin boqolleeda disheen agoona ka tagteen bal horta wax ku soo sheega meel maanta aan xisaabtamayno waa maanta annaga horta naxalisaan maanta sax xisaabtamayna dhul akaaleysin boqolleeda qabtiin dhul muxuu yahay dhulka dudurta qaata sheegaysiin annagu tii la dilay ka badan baa hadda kadib inaan ku dhimanno ma og inaan guurno lagama yaabo dawladdu haddaysan ka soo jawaabin oo dhul ku hadashana maba nimateesho ma naqaanba ilaa dawladdu nooma ahay maxay dawladdu ku tahay inay shacabkeeda aruuriso inay ninka maqan tabto inay ninka la dilay ka hadasho inay ninka baahan gacanta qabato ninka waxbarashada qabo rabo wax barto intaas matashaa Soomaa ninay wax barto ma jiro ninay baalkii sheeg oo ay disho mooyeen ninay daawayso ma lahan anaga istaal nama siiso dawladdu oo istaal nama furto waxbarashada nama siiso shaqana kuma haysano waxa aan ku gambanayna waa goof Maxamed Siyaad Barre ka tagay goof Xasan Sheekh Maxamuud anaga ma hayno ha xaaqdo ha goofo lacag ku gato kaman dawladda Maxamed Siyaad Barre ka wada harnay ayada kaliya kama harin annaga dhan waa ka wada harnay goof Maxamed Siyaad Barre uma naqaano nimankii madaxda ah ninkay dileen waa ka rabnaa maanta ka soo hadlaan nimanka dishay fanax baa dilay waxa soo dirsatay haram cad waxa soo diray ninka la yiraahdo kaniif qorobtiisa waxa soo diray sulub niman la yaqaan baa soo diray oo ilaa hadda jeebka ku wata asagiiba maanta laga halteena marqaatiyaab loo keenaba nin dambiila oo marqaati loo keenta lagu arka adduunka weligeed ma shaqays hay dawladda Soomaaliya lagu arka marka saybiyaan sideedaba musuq maasuq haday ayagu wadaan annaga meeshaan dhalasho gooniya ayagu uma dhalan dawlad fanax wuu dilay meesha ku shaqaysanay ugu yimid waa ku dilay maraq iyo marqaati la CID baa timid oo sawirtay xaafado dhan marqaati ka ah dadinka la qarnaayo ma walaal dawlad CID annaga nama aan dawladda weey haday qarnaayaan annaga nama matalaan oo bayna dawladda annaga dawlad ma qabnaa sideedaba ayagu waxay ku hadlayeen damdamis bay leeyihiin maxay damdamis ku qaadanayaan horta ka soo hadlaan ninkii la dilay ilmi agoonta ahaa marasta ahaa xildhibaanada annaga nama matalaan haddayna matalaan waa noo soo hadli lahaayeen Soomaa shay meedka duuga yiraahdeen ka bacna dawladda gadaal ka galeen jaabka loo buuxshay ma min qaambo guriyaan in boosas laga siiyaa warfaaya haddii laga siiyay waa ayaga u taala wallaah anaga waxba loo imaan maayaan sidii lankii shay dhintay loo dilay ayaga loo duugaya dhulkan dabdamiska hore ay xiisada soo taagneed isla markaana marar badan ayay soo laalaabatay booliiska Soomaaliyana dhowr jeer ay hanjabaado ka soo saareen iyadoo la xasuusto in ceelkan iga dambeeyay lagu dilay mid ka mid ah dadka xaafadda Cabdiqaadir Barre wararka SBTV Muqdisho.